su-aasha kale xigta aan rabo inaan ku weydiiyo waxa waaye dad badan oo halkaan naga daawanayaan jecel inay su-aashaasi aad u fahmaan gabdhihiina modelka sameeyo la idinkuma arko gabdha cayilan sababtu maxay tahay wallahi it depends qofkay ku xiran tahay because kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada igu wada xiran haddii ay tahay dhanka Facebook ama YouTube-kaba waxaan idin leeyahay kulan wacan waxaa barnaamijkan ku wareysan doona waa walaashay Yaasmiin Mohamed Maxamuud oo dabcan ah gabar modelka ku guuleysatay kana qayb gashay modelka isla markaasina ah modelada hadda waayadan aadka ugu shidan ama ugu kacsanba marka hore Yaasmiin soo dhawo wadawhay aadaweyn aad u mahadsantahay sida quruxda badan ay ugu soo dhaweysay aad u mahadsantahay Yaasmiin waxaan rabaa maadaama aad modelad aad tahay dabcan aad ka qayb gashay Mrs Africa University waxaan rabnay marka hore inaan noo sheegtid yaa kugu dhiirigeliyay inaad model noqoto wallahi aad u mahadsantahay su'aasha quruxda badan ay weydiisay qofka igu dhiirigeliyay qofka koowaad wuxuu ahaa hooyaday iyo aabahay ma sha Allah aad ugu mahad celinaya sababtoo ah laantooda hadda meesha taaganahay mistaagi lahayn aad ugu faraxsanahay good su'aasha labaad aan rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay dumar badan baa aad u jecel inay modelka noqdaan balse ay caqabado badan ka hor imaado inay model soo noqoto ama stage kaasba inay soo korto ama qualify inay noqoto sababta aad u heshay inaad stage level ka soo korto kadibna qualify aad noqoto aad ka qayb gasho sababta kugu dhiirigelisay ama stage ka u soo martay okay horta waxa waaye modeling la sheegayo waxa waaye beauty pageant waxa waaye sida aaminsanahay anaga Soomaalideena ma aaminsanin because of waxa ognahay gabar hadee model gasho inay isqaabinayso inay maxaa la dharka dhiganayso dabcan aniga horta sababta koowaad ugu soo galo waxa waaye I wanted in proof gareeyo inay isqaabisid ma u baahnid hadaa model noqonaysid and the second thing waxa waaye for you to be qualified waxa u baahan tahay confident waxa u baahan tahay how to waxa la kulmaysaa 50 qof 100 qof stage-ka hortaada fadhiyano and you have to su'aasha la weydiinaa ka jawaabtay that confident hortooda inaad ku socotid wax kasta ku samaysid so aniga waxa dhigi karaa horta confident kaas haystay wow okay waxaad ka qayb gashay oo aan aragnay Miss University of Africa before kulama aad ka qayb gashay oo aad ku guul daraysatay ama caqabada ka hor imaaday ma dhacday before intaadan ka mid noqon may wallahi because aniga Miss University Africa waxay ahayd first modeling asameeyo and alxamdulillah hadda ku guuleystay and markii igu horeysay oo aad ka qayb gashay ka qayb galo modeling stage-na aad kortid exactly that moment markaad dhexmarisay dadka dareenkaaga inaad la wadaagtid oh my god wallahi billahi horta dadkii meesha joogay way arkeen because I was so nervous and wadnaha gacanta ku hayay because ma isdhayn intaas oo qafaa hortooda ku soconaysaa hortooda waxa ku sameynaysaa so it was so difficult for me but alhamdulillah waxa ku fiicnay once I stage ka galo courage kaasi confidence kaas waa qabay hora marka u soo train gareysay yes okay su'aasha kale xigta aan rabo inaan ku weydiiyo waxa waaye dad badan oo halkaan naga daawanayaan jecel inay su'aashaasi aad u fahmaan gabdhihiina modelka sameeyo la idinkuma arko gabdha cayilan sababtu maxay tahay wallahi it depends qofkay ku xiran tahay because bishaaro iyo bilkhayr daawadayaal shirkadda qaadista xamuulka iyo alaabaha ee Nodsom waxa ay ganacsatada Soomaaliyeed ugu bishaareynaysaa in meel walba oo dunida dacaladeeda ay ka joogaan ay u qaado alaabaha iyo xamuulka ay doonayaan in guryahooda iyo goobahooda ganacsi loogu keeno waliba qiimo ku raali gelinaya iyadoo la isticmaalayo gaadiidka cirka dhulka iyo waliba badda haddaba ha dhibtoone dheefso oo degdeg oo la xiriir Nodsom adigoo kala xiriiraya taleefanada shaashada kaaga muuqdo waxaa la dhahaa maaragtay dadka burburan iiga confidence ma qabaan sababtoo ah maxaa la dhahaa waxay dhahayaan waa cayilanahay mana la qaadanayo bar anaga hadda team caartanahnay waxa confidence kaas aan ugu jirto so qof kasta confidence kiisa waa
Okay. To be thin like you. Maxuu qofka u soo maraa ama uu noqon karaa in gabdho badan oo halkaa ka daawanaya rabaan steelkaaga caatadaada oo kale inay iyaga ka mid noqdaan rajadoodu ay tahay ma sida dadka cayilan cunadoodii oo kale daily routinekiina idin ah mase different cunno gaar aad cuntaan oo idinka ilaalisaa jiro waxa aad sameynaysaan? Oh my god. And okay, you know dadku way kala duwan yihiin, dad jiraan daily routine ay qabaan, daily food ay cunaan ay jiraan. Bar aniga ahaantayda dad iska hadlo, aniga Soomaaliya ka mid ahay, Soomaaliyiin waxay cunaa wixii hor imaado waa cunaa. Bar waxaa dhihi karaa la caatadan is a blessing because saana ku dhashtay ama waxa cuna ama yaa cunin, I'm still the same. Waa tahay su'aashii ugu dambayso aan rabo modelkaaga ilaa heerkee rabtaa inaad ka gaarto? Wallahi horta mi dadka oo dhahaya model waxa waaye my entire life ka dhigaya or my entire life ku wadaya, but then waxa waaye until aniga all thing meesha usoo galo waxa waaye inaan Soomaali proof gareeyo. Soomaali maadaama aanan aaminsanayn beauty pageant, so I wanted to ayaga inay ogaadaan waxa waaye quruxda maaha isqaawin. qof kasta oo jalbaaban oo asturan waxa waaye quruxdiisa gooniyo qaba. So ilaa heer aan ka gaarayno ee Soomaali ee aaminaan beauty pageant wax la dhahayaa jiro. Until that point inshallah inaan wada jeclahay. Okay. Ugu dambeyn waxaan maqashiisanahay inaad ka qayb gali doontaan next level model kaasoo aad out of this country u bixaysaan. haddaad wax yar nooga taabato ama nooga hadasho. Okay, Miss University Africa horta waxaa laga leeyahay Nigeria. Okay. In waxaa iskala dad Nigerian ah. So competition waxay ka dhacaysaa waa 54 countries waa Africa dhan. And aniga hadda yasmin ahaan waxaa u taaganahay Soomaaliya. So in that 54 countries waxaa la rabaa hal qof oo crown gareeyo. Sida uu ognahay hadda 2021 gabar Soomaaliya noo qaaday. And we want to make history again inaa haddana anaga Soomaali haddana crown ku soo celino. Inshallah. codsiga ugu dambeeya oo bulshada halkaa naga daawanaya aad codsanayso maxay tahay? dabcan waxaa codsanaya waxaa waaye Instagram page iyo Facebook page ay leeyihiin Miss University Africa. waxaan ugu qoran Miss University Africa sawiradeena la soo dhigay 54 countries aniga Soomaaliya matalaya. So waxaa codsan lahaa inaa Facebook ooda ciwaankooda iyo Instagram ciwaankooda inaad tagtid and like iso saartid sawirkaasito. Thank you. marka waxaaba la leeyahayba waxa ugu badan oo la qaadayo waxa waaye oo la select gareysanayo page-ka inta la galo sawirka qofka ugu like batamiya qaabkee yani dadka hadii ay rabaan inay ku garab istaagaan qaabkee bay ku garab istaagi karaan? Okay sida uu ognahay 54 countries waa countries badan. And then hadda Nigeria markii la aado contents markaa sameynayno dabcan waxa waaye kulligeena lama qaadan karo. So top 10 a jirto 10 wadan ay top 10 soo galayaan. So 9 of them waxaa dooranaya judgeska oo meeshaas joogi doona habeenkaaseeto. That 1% automatically ay u soo galaysaa markii likes badan iyo maxaa la dhahaa Instagram iyo Facebook markii likes yaasha isku dardaro qofkii likes badnaada. So top 10 automatically u soo galaya. That's why waxaa laga yaabaa xitaa 54 countries inta 54 countries ee stage ka socdaan in la arki waayo inay maxaa la dhahaa judgeskaas mashquulsan yihiin oo qofkan wuxuu sameynaya stage ku arkin. So nasiib dartiisa that's why loogu daray qofka tamanaad inuu noqonayo qofka laga qaato qofkii sawirkiisa like badnaada. Wow. aad iyo aad baa u mahadsan tahay Yasmin sida sharafta leh fursadda noo siisay waqtiga inoo soo hortay waan kaaga mahad celinaynaa. dhammaan saaxiibada si naxariis leh vlog isku xiran hadii ay yihiin YouTube-ka ama Facebook-gaba waxaan idin leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin. sidoo kalena waxaa codsi iga ah meesha aad ku aragtaan walaasheen Yasmin iyadoo magaca Soomaali xambaarsan ama ambassador ka ah iyadoo waliba u xambaarsan qaybta quruxda dumarka Soomaaliyeed inaad ku garab istaagi doontaan oo waliba aad magaca meeshaas crown-ka noogu helin doontaan sida safarkii hore aad noogu heeliseen. tani mar kale muuqaal noocan oo kala ku kulmi doono waxa idinkeega tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. bishaaro ma doonaysaa inaad soo xajiso waliba xataa xajkaaga uu noqdo mid ay culimo wehelinayso? hadday jawaabtu haa tahay waxaa diyaar kula ah shirkadda Ali Business. waxa ay ku sahli doontaa qiimo aad kugu raali geliya. hadday jawaabtaadu haa tahay waxaa halkaa inala jooga managerka oo faahfaahinta ku siin doono
fadlan videoga ila dhameyso oo soo diyaar garow xajkaaga ama cumradaada. بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشركة علي بيزنس سولوشن إذن قبطة أديك حجك iyo cumrada adeeg wanaagsan iyo qiimo dhimis aad u hooseysa haddaad u baahan tihiin nagu soo booqda xarunteena oo ku taala xaafadda Islii dabaqa Nasteexa Shopping First Floor A6 ama nagala soo xiriira nambarka ku qoran shaashada si acmaashaada kugu saxnaato waxa ku raaci doonaan culumo ku takhasustay acmaasha xajka iyo cumrada waa mahadsantihiin